dowlad goboleedka Puntland baa la aasaasay wasaaradda waxbarashadu waxay dadaal bay samaysay waxay ku tala gashay in iskuulka dib loo qaajiso waxay u soo shaqaaleysay saddex macallin bay u soo shaqaaleysay magaalada tan laakiin waxaanay dagu jalaqsiina waxba ka eegin burburkii baahsanaayo iskuulka haystay iyo agab la'aantii awalba markii dowladdu jirtay xataa ka jirtay taasuna waxay sababtay inay iskuulkii uu si fiican u dhaqaaqi waayo bal iska wadaayay sanad ka dambaysa ardadii dhiganaysay way soo resistance gadaal bay waa soo afkooda waa soo dhacay ilaa uu gaarayba inuu zero gaaro ama isxiro halkaa markii xaalku maraysay ilaa 10 sano iyo wax uu saa isaga dayacayay waxa iskooda isu xilqaamay dhalinyaro deegaanka u dhashay oo isugu jira ganacsato iyo aqoon-yahano oo la baxay urur magaciisa la yiraahdo Noor Foundation urur samafala oo Noor Foundation waxay sameeyeen koow marka uu rasay iskuulka ay dayactir ku sameeyeen dhamaantiis rehabilitation ku sameeyeen waxay ka bedeleen saqafkii waxay ka bedeleen albaabadii waxay ka bedeleen dirishadihii waxay u sameeyeen dayr fancy ku daboolan ku soo gadaaman waxay galiyeen albaabka aragtaan waxay kaloo sameeyeen barkad biyo ah oo ciyaalu ka cabaan quruxda ay yeeleen bay u sameeyeen waxay la tahay ilaahayna waa ka jaseynaya innaguna abaal been ugu haynaayo taariikhda xuseen waxaan idin ka soo ilaaway iskuulka waxa loogu magac daray ninkii geesiga ahaa geesiga iyo wadaniyada isku dhafay haddii dadka uu ku ilaawo taariikhdan ku ilaaway Allah ya dad badan hadda maanta meesha jooga inaysan aqoon laakiin taariikhdan ilaawayna xustay darbiga magaciisa ku yaala maxaa rag badan oo kala soo dhintay maanta aan magaciisa loogeynba ninkii wadankiisa wax u tara sidaas uu bari ka maalin meelaha muhiimka ah oo fiican oo wanaagsan oo sida madaarisku ay ka mid yihiin loogu qorayaa magaciisa intaas hore baan u soo ilaaway inta markaan ka gudbo iskuulkii marka waxay kaloo sameeyeen markaasi agab buu iskuulku u baahan yahay agabkii baa la keenay hadda kuraasta aynu ku fadhino iyo miisaskii iyo sabuuradihii iyo jeesadii wax lagu qoraayay iyo مثلا waxa kamida oo kaleeto kitka waxa la yiraahdo ama qalabka lagu shaqeeyo iskuulka inta waa diyaariya isla markaana waxay u shaqaaleysiiyeen macallimiinta hore joogtana shaqaalaha joogtada ah iskuulka ayay ka dhigeen laba macallin oo kalena waa ku soo siyaadiyeen shaqaduna waxay u socotaa si habsami ah sanadka iskuulka furitaankiisa uu yar naga daahay sababtaasna waxaan u aanaynaa xoogaa isqabsi la'aanta luxusnimada oo halka iskuulada laga furay bishii 9aad iskuulada Puntland bishii 9aad laga furay iskuulkan waxa la furay bishii 10aad balse hadda kadib waxaan rajaynaynaa inaanu la jaan qaadno qeyrkiya oo aanu iskuulada marka la furana aanu furno marka la xirana taas waa taa waxa hadda imtixaankii teeramka markii la qaaday natiijadiisii waa soo baxday iskuulku waa sida maamuluhu sheegay waa 3 fasal labada gelin baa 3 baa dhigata 3 galabley weeye 3na waa subaxley guud ahaan waa 6 fasal lixda fasal galabtii subaxdii waxa dhigta 3 fasal oo xadaana ah xadaano dadka qaar kisma yaqaan waa dadka higaad baradka ah galabtiina waxa dhigta koowaadka iyo labaadka iyo saddexaadka oo hal fasal waa isku 3 fasal fasal kasta lixda fasal waxaan u diyaarinay jaa'iso ninka koow ka gala fasal kasta iyo qofka laba ka gala iyo qofka 3 gala 6 fasal oo 3 arday jaa'isadoodii waa diyaar waxaan jecelahay hadda inaan hortina ku bixino dadka mutaystay taasna waa taa tan kaleeto iskuulka rajo fiican baanu ka qabnaa sanadka dambe hadii ilaahayna gaarsiiyo cadadka ardada oo hadda sida maamuluhu sheegay 200 maraya inay la walaamaan ugu yaraan la walaamaan baan rajo ka qabnaa laana waxa dadku waxa loo sheego hadii wixii loo sheego ama run ama been buu noqdaa laakiin waxaan dhaada ku aragtaa iyo been noqon kara sanadkii hore waxa way dadka waxbaan u soo sheegnay dhammaan tuulooyinka ay magaalada qandalaha hukuumadda soo maray markii laga reebo buruc oo aanu gaadiidka wadani noo tigi waayay
لكن أنت كالعيان صومري وعلى لقي يا إن ركبوا هذا ماشي وأنا مصور كأنا هو صومري وحنا نصور شيء دوينا نصور شيء واحد سوق عن كريم لكن ما أنت وركي ولا قصوا قد محل أركي وحي ولا dad badan oo boos joogo been idin sheegi maayo ayaa waxay diyaar u yihiin sanadka dambe inay caruurtooda halka keenaan maxaa dhacay boosaaso hadda ilmaha biilka ku baxa biilka iyo labiska idaha loo gado waxa ka batay kan ku baxa waxbarashadiisa iyo kan ku baxa muxuu ahaay daawadiis labadaasba inagu waa ka badbaadinaa insha Allah waa mar horta magaalada waa si fiican cudurku meel baa jooga laakiin meesha sanitationka fiican yahay waxay ka caafimaad badan tahay meesha xoolaha ay hawada xun tahay taas beentay miya taas waa taa tan kale tana hadda waa la noo balan qaaday khayr Allah siiyo wiilba noo balan qaaday waxa la yiri adinku buugiina qalinkiina soo qaat ma andoo mid baa wuxuu yiri buugii qalinkii baan ugu dartaan taa ugu dheeda cidii iyo u diyaar oo leh anu buugii qalinka ma adkin bal waa isugu imanayna taasna waa taa ugu dambeyntii waxaan leeyahay والله نور فاونديشن waxaan leeyahay nin baa waxa irti kale lahaayo maalin waa geedi oo maalin waa raf oo maalin waa hawl kale soo heeriyada u saarayay ayuu murxay istiga rar ayuu ratigana qancinaya ayuu wuxuu yiri hawl kama daale wali waa hogadii macnaha annagu hadda cid kale aan adeegsanayna wala dawlad Puntland wala meel kale to hay'ad muslimiin gaaro mid tahay idan waxaan baahidayada aan weydiisanayna ilaahay adinka ma hay ma jiraan iskuul wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan waxa ka mid ah xafiiska iskuulka ma qalabaysna malaha kuraas maamulka macallimiinta ama martida noo timaada ay ku fariistaan malaha armaajooyin loogu xirayo dokumentiga uu leeyahay malaha kit malaha stationery ama qalabka xafiiska looga shaqeeyo waxa ugu yar qardhabta yarta ay loo roo isku qabto maanta ayay warqadna kala gooday aan u weynay inaan ku qabanno ma haysano waxaan u baahnay qalabka xafiiska iyo agabka u baahan yahay kulli noo keeno wuxuu kaloo iskuulku u baahan yahay musqulaha waxa la qoray waa hore la qoday qaab qadiimiya baa loo qoday godkoodu ma saxna ciyaalku ma isticmaali karaan biyo badan bay u baahan yihiin beeb qaloocan baa ku jira waxaan u baahanahay musqulo godkooda iyo boosnimada isku toosan yihiin oo direct ah baan u baahnay si nadaafadu aysan ciriiri u gelin waxaan kaloo u baahanahay barkad biyo la sameeyay balse nadiif daro caag tuba caaga ayaanu biyaha ku soo xirsanaa tubada caaga ahayna dhexdiisa ka jabtaa markii dhexdiisa ka jabtana biyaha pressure-kooda awoodoodu ma socoto taa dib baa noogu sugan waxaan u baahanahay beeb bira oo ilaa 100 mitir bay u jiraan maanta ayaan cabiray ilaa 100 mitir bay u jiraan beeb 100 mitir oo bira oo nalagu soo xiro biyaha waxaan laga bilqaaday qolada biyaha inay iskoolka biyaha bilaash ugu sugto laakiin waxa ku dhiba waxay u geersi ku keen lahaayeen magaaladuna sida la socotaan booyad ceelka weyn biyaha ka soo qaada oo ceelka noogu shubta malaha taasuna waa taa waxa kale oo jira sida uu maamuluhu sheegay macallimiinta qaar sida kuwa hore uga shaqayn jiray inkastoo wasaaradda waxbarashada lacag siiso kuwa Noor Foundation aad ay siiyaan labadaas markii la isku daro wali way saluugsan yihiin waana ay ku yar tahay waxaan codsanaynaa in iyagana la dhigto waxa kale oo jira tirniiga saaran iskuulka inkastoo aanu markii u haysanay tirniig aad u fiican haddana wuxuu noqday mid roobka aan la falgali karin oo haddii roob qabto qalloocsamaya oo milmaya oo biyo aan celin karayn waxaanu doonaynaa in la bedelo intaas markaan taageeraho qolada Noor Foundation oo hawsha gacanta ku haysa qolada diaspora dhalinyarada dibadda noo jirta ee aan ku jirin Noor Foundation waxaan leeyahay hadda waana ku deetaan dadka walaalihiina ee wanaaga